shirkeena jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay maamulka gobolka Banaadir oo shaqada ka joojiyay shaqaale ka tirsan shaqaalaha gobolka Banaadir ee dowladda hoose ee Muqdisho oo sameynaya shaqtiyo been abuur ah ama loo yaqaan cabdilashadeeye kaasoo ka tirsan shaqaalaha gobolka maamulka markuu arkay cadeymihii iyo kiiskii oo dhameystiran uuna baaray uu si taxaddar leh loo baaray la helay shabadihii iyo warqadihii shaqtiyada foojarka uu ku shaqayn jiray waxa uu gudbiyay xarunta CID-da ee dambi baarista kadibna waxaa la go'aamiyay markii la tashatay qubrada sharciga ee dowladda hoose ee Muqdisho in shaqaalahaas shaqada laga joojiyo arrintiisa lagu wareejiyo ciidanka booliska sidoo kale maamulka gobolka wuxuu baaritaan ku wadaa ama uu ku daba joogaa dukaamada shaqtiyada been abuurka cabdilashadeeyaha ku shaqaysta asigoo hadda dukaamada qaar kiisaskooda la soo helay baaristoodana ay socoto sidoo kale maamulka gobolka wuxuu go'aan ku gaaray inuu la dagaalamo ama uu ka hortago dukaan alla dukaankii ku shaqaynaya shaqti been abuur ah oo diidan inuu bixiyo lacagta canshuurta ku waajibto si uu helo shaqti sharci ah oo ka soo baxay dowladda hoose ee Muqdisho sidoo kale maamulka gobolka wuxuu kula dardaarmayaa ganacsatada gobolka inay hubiyaan sharciyada ganacsiga ay haystaan sababtoo ah shatiyada been abuurka waa dambi weyn qofkii lagu qabtana uu ku mutaysanayo ciqaab ama ganaax aad u adag waad mahadsantihiin wabillahi tawfiiq